الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kelimadan waxaan jeclahay munaasabadda aan arkay shalay oo lagu soo bandhigay buugga laga qoray fadiilatu sheekh alcalaama الشيخ عمر الفاروق عمر حاجي عبد السلطان ilaahay ha u naxariisto jannadiisana ha geeyo oo taariikhdiisa iyo sooyaalkiisii iyo waayihiisii ka hadlaysa. walaaluhu waa ii sheegeen waxaana la iga dalbay weliba inaan kelimad soo duubo maadaama aanan kasoo qeyb geli karin, laakiin ma dhicin. hadda ayaan ka dabageynayaa insha allahu tacaala wixii aan sheekha raximahullahu tacaala aan ka bartay ama ku bartay, aan ka faa'iiday ama aan arkay in laga faa'iiday iyo sooyaalkiisii iyo waayihiisii iyo warkiisii wixii aan ka hayo. saddex qaybood baan u kala qaybinayaa. qaybta koowaad waxa weeye sheekh cumar faaruq markii aan bartay iyo waqtiga aan isla soo marnay. midda labaadna waxaan kaga hadli doonaa astaamaha ama calaamadaha sheekha aan ku arkay muddadaas dheer ee aan aqaanay raximahullahu tacaala. midda saddexaadna waxyaalo ka kooban intii xusuustu ay maaragtay igu caawiso insha allahu tacaala, ama aan ka garto ama aan ka xusuusto. midda koowaad sheekh cumar raximahullahu tacaala kolley buugga iyobaa lagu faahfaahiyey taariikhdiisa, dad badanna waa ka warhayaan. taqriiban 1980 buu jaamaca alislaamiya madiina uu dhameeyey sheekhu sida la ogyahay. anigu waxaan bartay waqtigaas waqti ku dhow 1981 82 bilowgeedii. waa markii uu kitaabka tafsiirka ah ee ugu horreeyey uu ka bilaabay magaalada jidda. wuxuu sheekhu ku akhrin jiray safaaradda soomaalida oo jidda ku taalay intaan safaaradaha riyaad loo rarin, ayaa waxaa ku tiilay gadaasheeda meel jaaliyadda soomaaliyeed ay leedahay. marka waxay ahayd deyr weyn oo safaaradda ka dambeeya, makhaayad yar ku taalo, mawlac yar oo dhinac gees ah ku yaala oo lagu tukado maqribka iyo salaadaha lagu tukado baa isaguna yaallay, oo ardaa oo kaleeta ah, dhagax ku xiran, dhismo ma ahayn. barxaddaas rugta jaaliyadda ayaa gees yar waxaa dhagax lagu meegaaray si loogu tukado. marka halkaas ayuu sheekhu ku bilaabay tafsiirka. waqtigaas ayaan bartay sheekha. anigu tafsiirkaas waxaa fadhiyey dad, haddaan yacni xusuustayda ururiyo 20 qof ka yar, marmarna qaarkood ka bata, wax yar ka barta 25 ama 30 gaara ama ka yaraada, marmarka qaarkoodna dhowr iyo 10 gaara. darsiga qiimaha badan oo sheekhu tafsiirka uu halkaa ka akhriyo dadkaasaa dhegeysan jiray kooban. waqtigaasna jidda waxay ahayd meelaha soomaalidu qurbaha ay ugu badan tahay bay ahayd. waxaa ilaahay i tusay isagoo nool sheekh cumar faaruq oo darsigiisa ay 20 qof fadhiyaan waqtigaas, inaan arko markii uu geeriyooday allahu naxariista oo ilaahay oofsaday, cajaladiisa keliya isagoon joogin in dad 2,000 ka badan ay dhegeysanayaan, hal fadhi ay dhegeysanayaan oo masjid cajaladii laga daarayo. waqti aan soo maray mararka qaarkood meelaha Soomaaliya meelo ka mid ah in masjidka bacdal maqrib dadku fariistaan, gabran yihiin, 1,000 qof 2,000 qof ay fadhido, cajalkii tafsiirka sheekha la daarayo oo la dhegeysanayo. marka waxaan arrinkaa ku xusuustay hadal uu yiri gaariye allahu naxariiste, abwaankii macruufka ahaa Soomaaliga ahaa maxamed xaashi dhamac. wuxuu yiri soomaalida waxaan u aqaanaa aasi og, yacni way aasi taqaan buu yiri, way aasi taqaan. oo waxa weeye qofka qiimihiisa, qofkeeda qiimaha leh markii uu dhinto kadib ayay gartaan. ma gartaan intuu nool yahay inay wax ama dhiirigelin ah
ama يعني maaragtay garasho ah ay u gartaan Soomaalidu ma laha buu lahaa arrintaas taas iyo xaqiijis sheekha waqtigaas aan bartay intii ka dambeysana waxaan dhihi karaa 3 heer bay barashadeeda sheekha ay soo martay ama la socodkayga sheekha ama la rafiiqidayda qaybta koowaad waa qaybtaas aan wax ka bartay oo ardayga aan ahaa oo aan sheekha wax badan ka faa'iiday gaar ahaan tafsiirka quraanka kariimka ah iyo xifdintiisa iyo weelayntiisa iyo luqadda ama afka Soomaaliga oo diinta lagu gaarsiiyo ama lagu sheego saddexda arrimood oo weyn sheekha waan ka faa'iidaystay waqtigaas ilaahay khayr ha siiyo jannadiisina Allah geeyo marxalada labaad waxay ahayd marxalo aanu sheekha wada shaqeynay oo markii burburkii Soomaaliya dhacay 1991 kadib dowladnimadii burburtay sheekha shaqooyin badan baan wada galnay waxaa ka mid ahaa baaqi culimada ee Maka ka soo baxay 1993 shir weyn oo Maka xajka kadib lagu qabtay culimo aad u fara badan oo madaaris kala duwan ama itijaahadka يعني ay leeyihiin Soomaalida ha noqoto حركات ha noqoto طرق ha noqoto culimo mustaqiliina sida Sheekh Umar iyo Sheekh Sharif Abdinuur rahmatullahi alayhi iyo culimadaasuna ay goob joog ka ahaayeen waxaan kaloo ku xusuustaa oo culimada nala joogtay shirkaas ka mid ah oo baaqaas ku qornayd waanan hayaa baaqi iyo culimadii ku qornayd iyo intii ka soo qayb gashay oo dhan waan hayaa way xoghayntii baan u ahaa culimada marka waxaa ka mid ahaa Sheekh Nuuruddin Xuurshow waxaa ka mid ahaa Sheekh Xaamud Ziyaar rahmatullahi alayhim waxaa ka mid ahaa Sheekh Adda Dhimanayay Allahu naxariisto ilaahay subxaanahu wa tacaala dhammaantoodba waxaa ka mid ahaa Sheekh Cumar Faaruq waxaa ka mid ahaa Sheekh Sharif Abdinuur waxaa ka mid ahaa culimo badan oo maaragtay waqtigaas xajkii timi oo kana soo qayb gashay kulankaas baaq Soomaalida loo dirayo nabadayn ah inay heshiiso inay dib isugu soo noqoto inay dowladnimadeedii iyo sharafteedii iyo midnimadeedii iyo wadajirkeedii dib u soo ceshato ayaa baaqaas culimadu ay ku farayeen ummadda Soomaaliyeed marka taas baa ka mid ahayd markuu sheekhu Yurub aaday oo khaasatan dalalka Scandinavia qayb baan ka ahaa howlihiisii iyo tigitaankiisii iyo dacwadii iyo raadkii iyo saameyntii weyneyd uu ku yeeshay gaar ahaan Sweden oo saldhigu ahayd iyo dalka Norway iyo dalalka ku xeeran oo muddo uu sheekhu halkaas soo joogay kadib Soomaaliya iyo dib u heshiisiintii shirarkii dhacayay ilaa iyo shirkii Carta uu dhaco oo sheekhu uu ka qayb galay oo toban taabadiisii iyo wada shaqeyntiisii aan kula jirnay ilaahay subxaanahu wa tacaala khayr ha siiyo marxalada saddexaadna waxay ahayd marxaladii dambe oo sheekhu uu soo tabaryareeyay Sacuudiga ku soo ururay mar walba inaan gurigiisa ugu tago oo ku siyaarto oo ku booqdo oo ka faa'iideysto xikmadiisa iyo aqoontiisa iyo waayo aragnimadiisa gurigiisa Jidda oo deganaa kilomitir 7 ama kilo 7 meesha loo yaqaano halkaas deganaan jiray Makana wuxuu deganaa xaafadda Malawi halkaas oo geeridu markii dambe ugu iman doonto Jidda iyo Maka dhexdood marka muddadaas dheer oo 1980 ka soo bilaabata ilaa uu sheekhu ka geeriyoodo rahmatullahi alayhi waan isnaqaanay waan wada soconay waan ka faa'iideysanay wax badan aan wada shaqeynay wax badan aan soo joogay oo taariikhdiisa iyo waayihiisa iyo mawaaqiftiisa sheekha waxna waan ka qoray oo buugaan culimada Soomaaliyeed ka qoray oo wali aan la daabicin wuxuu ka mid yahay rag ugu horeeyo oo aadka u bartay oo aan ka faa'iiday waxna ka bartay ilaahay subxaanahu wa tacaala ajarkooda ha weyneeyo jannadiisana ha geeyo dhammaantood qaybta labaad waxa weeye waxaan sheekha ku bartay muddadaas dheer sheekha waxyaalaha ugu weyn oo runtii uu caanka ku ahaa aftahanimo ilaahay siiyey subxaanahu wa tacaala wuxuu aftahan afmaal ah oo luqadda Soomaaliga ama afka Soomaaligana hodan ku ah oo kelimadu doono
oo luqadan yani carabiga ah oo diintu ku soo degtay marka uu rabo inuu u gudbiyo dadka Soomaaliyeed af hodan ah oo uu ku gudbin karo leh iyo balaaqo iyo aftahanimo ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu deeqay. taas waxay ahayd mid uu caan ku yahayo qofka dhegaysanaya aanu ka daalihayn bal uu doonayo saacado xataa inuu sii wado hadalka Sheekh Cumar Faaruq haddii uu hadalka qabsado marna aanu ka daalihayn oo waxa weeye ereyada uu adeegsanayo afka Soomaaliga sida uu ugu raaxaysanayo sida uu u kala dhigdhigayo kelimadaha uu isku fasirayo oo isku macnaha ah oo uu hayo oo carabta waxay luqadda carabiga mutaraadifaadka la yiraahdo gobolada iyo lahjadaha sida looga hadlo uu yaqaano waxaasoo dhan wuxuu ku ahaa sheekhu horta nin caalim ah oo Soomaaliyeed oo ku gaara u yaryahay. midda labaad waxay ahayd qur'aanka kariimka ah. sheekhu wuxuu ahaa xaafid qur'aanka kariimka ah 6,600 oo aayadood iyo jarjarka aad moodo mid walba meeshay ugu jirto inuu yaqaano saacadu rabana soo qabsan karo iyo waqtigu u baahan yahay oo aanu xataa fikir u baahnayn haddii uu hadlayo ama haddii uu qadiyad ka hadlayo. wax cajiiba bay ahayd oo culimada Soomaaliyeed ku yar saas inuu soo qabsado aayaddu rabo meeshuu rabo suuraddu rabo xifdigiisu wuxuu ahaa xifdi yaab leh oo cajiib leh sida qur'aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qalbigiisa ugu weeliyey. waxaa intaa u raacday tafsiirkiisa tafsiirkeeda oo uu sayidana ku xeel dheeraa marka afkii Soomaaliga uu si fiican u yaqaano qur'aankii kariimka ahaa oo uu si fiican u xifdisan yahay oo u weeleeyey tafsiirkeedii oo uu yaqaano iyo macnaheedii intaasaa waxay ka dhigtay sheekha inuu noqdo qof gaar ku ah tafsiirka qur'aanka iyo dacwada islaamka si gaar ah uga tilmaaman ayuu ku noqday Sheekh Cumar Faaruq raxmatullaahi tacaala caleyh. qodobka saddexaad oo caanka ku ah sheekha oo aan ku arkay oo mawaaqiftiisa aan ka arkay waxa weeye xikmad ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyahay. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati walmawcidati alxasana. waxaad moodaa ilaahay subxaanahu wa tacaala sheekha garasho iyo garaad iyo xikmad baa ilaahay ugu deeqay oo shayga xikmaddu waxay dhahaan culimmadu waa shay walba meesha munaasibka u ah inaad dhigto. macnaa waxa weye sheekhu hadduu qadiyad ama arrin Soomaaliyeed gelayo meeshuu ka galo wuu yaqaan meesha ugu munaasibsan buu ka gelayaa. hadday tahay qadiyad siyaasad iyo ummadda umuuraheeda ah meeshuu ka gelay wuu yaqaan. hadday tahay qadiyad qoys iyo xalinteed yani waxa weeye maasha allah tabaaraka allah qofka ugu wanaagsan oo xallin kara. hadday tahay dadka muslimiinta dhexdooda iyo xallintooda aad iyo aad ba maaragtay arrintaas ilaahayna subxaanahu wa tacaala ugu deeqay oo sheekhu xikmad iyo garasho iyo murti baa ilaahay subxaanahu wa tacaala siiyey. waxyaalaha caan ku ahaa bayna ka mid tahay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala wax badan ugu hirgeliyey. arrinta qodobka saddexaad oo aan imanay waxa weeye mawaaqifta gaarkeeda oo aan yani hadda xusuusan karo waxa ugu muhiimsan waxaan majaalis badan iyo shirar badan iyo kulamo badan iyo wacdi badan oo sheekha aan joogay had iyo jeer aayado waxaa jira uu soo qabsan jiray markuu qadiyad Soomaaliyeed ama ummadda Soomaaliyeed xataa la hadlayo oo soo hadlan jiray wax badan ka maqlay soo ku celinay. aayadi waxay ahayd aayadaha suuratu nisaa aayadda 60 meelahaas baan filayaa inay tahay walow annahum facaluu maa yuucaduuna bihi lakaana khayran lahum wa ashadda tathbiita وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. أيضا الشيخ ذاتك الصوماليد مركو الله اللي يكسو عليهن جري واحد بدن بانك مغلي أنا وكفايديست ودعوة وكفايديست يعني معناها آية واتقران إيسان حوية إلهي سبحانه وتعالى وحليه هدي ذاتكو أما ذاتك مسلمين تاي قالهان أهل الكتاب كان لقصوا هذا haddii ay raacaan waxa aan ku wacdinayno walow annahum facaluu maa yuucaduuna bihi
haddii ay raaci lahaayeen oo qaadan lahaayeen waxa lagu wacdinayo afar arrimood afar bishaaro buu ilaahay siinay lakaana khayran lahum horta khayr bay noqon dad khayr bay noqon lahaayeen kaana khayran lahum wa ashadda tathbiitan ilaahayna waa sugi lahaa umurahoodu ilaahay sugi lahaa ashadda tathbiitan wa idan la aataynaahum midda saddexaad oo bishaarada ah waxa weeye la aataynaahum min ladunna ajran cadiiman ajar badan baan siin lahayn oo adduun iyo aakhiro isugu jira adduunkana nolol wanaagsan aakhirana nolol wanaagsan aataynaahum min ladunna ajran cadiiman walahadaynaahum siraatan mustaqiima arrinta afraadna dariiq toosan inaan ku hanuunino oo tawfiiqda iyo hanuunka aan siino ayadaha sheekhu waa wax badan baan ka maqlay soo ku celcelinaya mar dambe ayaan yani anoo isla sheekhu ayadahan muxuu usoo qaataa hadiyo jeer ayaan fahmay macnaha iyo ku duugan iyo waxa uu la jeedo oo dadkan Soomaaliyeed uu ku wacdinayo leeyahay waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala u soo dejiyey ee lagu wacdiyey hadday qaadan lahaayeen wax badan bay heli lahayn ayadaha labaad oo marar badan ka maqlay sheekha waxa weeye qisada nabiyullaahi muusa suuratul maa'ida وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين taasna waxaan maqli jiray sheekhu wax badan isagoo dadka Soomaaliyeed shirarka gaarka ah oo la isugu yimaado dadka la heshiisiinayo ummadda si guud ahaaneed marka loola hadlayo waxaan filayaa weliba cajaladaha qaarkood in laga helayo hadda YouTube-yada haddii dib loogu noqdo oo maaragtay ama shirarkii cartaa ama shirarkii kaleeto meelaha haddii khudbadihiisa laga soo heli doono aayadahana waad garanaysaan oo hadda ilaahay subxaana wa tacaala nabiyullaahi muusa uu ka sheekeynaya reer bani israa'iil buu wuxuu leeyahay nicmada ilaahay xusuusta nebiyu ilaahay idinka beeray ummadda nebiyuda jacala fiikum anbiyaa dhexdeena nebiyo ayuu ka soo saaray nebiyada ugu badanna reer bani israa'iil bay ka soo baxeen jacala fiikum anbiyaa wa jacalakum muluukan boqorrana waa idinka dhigay adduunka xukuma wa aataakum maa lam yu'ti axada min alcaalamiin wax aanu ilaahay dadkii markaa ummadihii jiray aanu siin ayaa ilaahay idin siiyey waxaan isleeyahay sheekhu ummadda Soomaaliyeed wuxuu markaa uu ku wacdinayay war ilaahay subxaanahu wa tacaala ummad muslin ah buu idinka dhigay war ilaahay subxaanahu wa tacaala ummad qur'aanka taqaana buu idinka dhigay war ilaahay subxaanahu wa tacaala ummad wax aan ummadaha kale la siiyey buu ilaahay subxaanahu wa tacaala idin siiyey oo nicmo adduun iyo nicmo diineed ah nicmo diin iyo nicmo adduun intii dee waxaa lagu bedelay maaragtay waxaan arkayno waana laga qatan yahay marka taasna waxaan filayaa inuu aayadaha sida isu qaadan jiray aayadaha kaleeto oo markii la yiraahdo maxaa u dardaarmaysaa ummadda Soomaaliyeed aayadda suuratul anfaal uu soo qaadan jiray fattaqullaha wa aslixuu daata baynakum wa atiicu allaha wa rasuulahu in kuntum mu'miniin waa bilowga suuratul anfaal sidaan ognahay ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka mu'miniinta ah uu ku waaninayo inay ilaahay ka baqaan saxaabadii baa lagula hadlay aayadahaas inay ilaahay ka baqaan oo dhexdooda islaaxiyaan welina way taagan tahay ilaa maanta ayaan leenahay ummadda Soomaaliyeed fattaqullaha wa aslixuu daata baynikum sheekh Cumar waxyaalaha arrimahaas baa ka mid ah guntay munaasabadan kooban waxay ila tahay wax badan oo hadala kuma sii dari karo intaas ayaan ku soo koobayaa inaan ku darsado munaasabadan wanaagsan buugga laga soo bandhigay ee uu qoray wiilkeena sheekh Cumar Faaruq wiilkiisa Maxamed Xadiis khayr allah siiyo uu ururiyey ilaahayna subxaanahu wa tacaala ummadda ha ku anfaco ilaahayna subxaanahu wa tacaala ha naga dhigo kuwa maaragtay wadada toosan ilaahay uu tuso oo raaca ummadda Soomaaliyeed oo muslimkaana ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka dhigo mid diinteeda qabsata wadadaas diintana ku socota ilaahayna subxaanahu wa tacaala dhexdooda heshiis dhex dhigo dhulkooda nabadgelyo uga dhigo barwaaqa uga dhigo kelimadooda ilaahay subxaanahu wa tacaala uu mideeyo qalbiyadooda ilaahay subxaanahu wa tacaala isu keeno annaga iyagaba khaatimo wanaagsan ilaahay subxaanahu wa tacaala adduunka nooga khatimo fitnada adduunka iyo tan aakhirana ilaahay subxaanahu wa tacaala naga hayo sala allahu calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi wa saxbihi ajmaciin